السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود أواد داوديال رمضان مبارك بركوين كربي كوركينا هاته وبرنامج أنو مقعدنا تحناها نرشي صحابة كاس أنكو سوقادان دون هل سحابي سلوا الكرامة في لقاء عدوهم وإلى الجنان حدتهم الأشواق فالأرض سجن والسماء كرامة ولأرضهم بدمائهم ميثاق للشام تهتز المآذن بالفداء فالله أكبر جيشها الدفاق والشام أجمل زهرة عاثت بها كف الليم وسامها الإحراق ذاقوا لأجل خلودهم ما ذاقوا أن يرجع العشاق سلوا الكرامة في لقاء عدوهم وإلى الجنان حدتهم. maanta waxaynu ka hadli doonaa miqdaad ibn al-aswad saxaabigii caanihii nebiga cabi sallallahu calayhi wasallam. waxa uu dhahay miqdaad waxaana haysa gaajo aad u daran dhagaha indhaha waxba kamaanan arkayn gaajo awgii. waxa uu dhahay aniga iyo laba saxaabi ayaa nimid masaajidkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. waxaanu raadinay cidna kaxaysa markaana cunana soo siisa, laakiin saxaabadu waxba maysan haysanin. rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam ayaana kaxeeyey. waxa uu nageeyey gurigiisii. waxaa joogay 3 riyaad, wax kale maysan jirin. waxaanu soo maalnaa riyaha, caanaha ayaanu cabnaa, ninba intii ku soo hagaagta. nebiga isna waanu u dhigi jirnay marka uu maqan yahay sallallahu calayhi wasallam. habeenada ka mida ayaa waxaa ii yimid shaydaan. waxa uu igu dhahay nebiga ilaahay waxa uu leeyahay saxaabo fara badan, kuwaas oo soo siinaya cuno iyo wax uu cabo. iska cab caanaha nebiga sallallahu calayhi wasallam. ana waan iska cabay ayuu dhahay miqdaad. markii aan cabay caanihii rasuulka sallallahu calayhi wasallam loo dhigay ayaa waxaan isdhahay iska seexo, laakiin waan seexan waayey. shaydaan ayaa haddana ii yimaaday. waxa uu igu dhahay caawa ayay kuu bilaamaysaa balabalkaaga iyo halaagaagu, maadaama aad cabtay caanihii rasuulka loo dhigay sallallahu calayhi wasallam. maxamed waa uu ku habaari doonaa, sidaas baad ku halaagsami doontaa. rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam waa uu yimaaday. rasuulku sallallahu calayhi wasallam waa uu yimaaday. waxa uu arkay weelkii oo madhan. rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam qacmaha ayuu kor u taagay. miqdaad ibn asad waxa uu isdhahay wataa lagu habaarayo, laakiinse rasuulku waxa uu ku ducaynayay ilaahow cidina quusa quudi, ilaahow cidina waraabisana waraabi. miqdaad ibn asad waa uu kacay. waxa uuna bilaabay inuu soo qowraco riyihii mid ka mida si uu rasuulka ilaahay u siiyo. waxa uu dhaqaaqay riyihii, laakiin waxa uu arkay riyihii oo caana dararaya. weel ayuu qaatay, weelkaas oo aad u weynaa. waa uu soo maalay caanihii. rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam ayuu u keenay. waxa uu ku dhahay cab rasuulkii ilaahayow. rasuulku waa uu cabay. rasuulku markii uu cabay waxa uu ku dhahay hoo adna cab, laakiinse waxa uu ku dhahay cab rasuulkii ilaahayow. rasuulku markii uu cabay uu si fiican uga dhargay ayuu miqdaad ibn aswad aad u qoslay. rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku dhahay maxaad ku qoslaysaa miqdaadow, waxaa laga yaabaa inaad wax samaysay. miqdaad waxa uu dhahay rasuulkii ilaahayow shaydaan ayaa ii imaaday, waxa uu igu dhahay caanaha iska cab.
anna caanihii lagu dhigay ayaan cabbay. rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku dhahay, taasi waa raxmad xagga Ilaahay kaaga timid, ee ma toosisi raggan kale si ay noola cabbaan caanaha. Miqdaad waxa uu dhahay, haddii aad rasuulka Ilaahay adigu cabtay anna aan cabbay caanihii, cid kale maxay naga saaran? ducadaadina hadday mar igu dhacday waa alxamdulillaah. barnaamijkeenna maanta intaas ayaan ku soo koobaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. is aragti dambe oo xiise leh.